ah fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Hibe waxay toddobaadkan nagu soo booqatay xarunta VOA ee magaalada Tan Washington. Waraysi dheer oo aan la yeeshay ayaan caawa qayb ka mid ah idinka dhadhansiinaya. Mataluhu kawnkama saygahu kumeeraya mataluhu kawnkama saygahu kumeeraya mahaya digaygahu kumilmaya mahaya digaygahu kumilmaya midigta waani saysanna haddana meel fog ku jira midigta waani saysanna haddana meel fog ku jira mahadhadaana qabe makisu wayga jeda mahadhadaana qabe makisu wayga jeda mililicaayshaydu way ku maqanto dankiisa waanu Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura oo ku faraxsanahay inaad nagu soo booqato stuudiyaha laanta afka Soomaaliga VOA adigoo ah fanaanad weyn oo caana si weyn loo jecel yahay laanta afka Soomaaliga VOA dadka joogaana ay si weyn ku jecel yihiin oo qaarkood aad soo wada shaqayseen marka mar kale soo dhawo Hibe Maxamed aad baad u mahadsantahay Caasha Cuud waana ka gudoomay soo dhaweynta qiimaha badan leh marka ugu horeysa intaan sheekooyinka u galin Hibe bal waxaad naga warantaa booqashadaadan aad ku timid Washington iyo Virginia iyo agagaarkeeda booqashadan ku yimi waxa weeyaan muddo dheer ayaa waxa laygu lahaa Washington layga marti qaaday kaalay maanta u dhacday waa gartay mar kale soo dhawo ku faraxsanahay Hibe Maxamed inaad nagu soo booqato magaaladan weyn ee Soomaalidana ay degan tahay inkastoo magaalada ka timid aan la dad ahayn tirada marka la fiiriyo Hibe waxaa tahay qof fanaanad oo caana muddo dheerna fanka ku soo jirtay heerar badan fanka Soomaalida uu soo marayna goob joog u soo ahaa bal waxaad ka warantaa fanka heerkaad ku bilowday siduu u ekaa fanka anigu heerkan ku bilaabay wuxuu ekaa markii Soomaalidu ay baxday ee tiyaatarka dhisatay ee adduunyadoo dhan safar loo tegayay ayaan anigu ku soo biiray markaan bil joogay waxaan tegay anigoon weli imtixaankii ka bixin waxaan tegay China haddana waxaan tegay Bulgaria haddana waxaan tegay Suudaan haddana waxaan tegay Tanzania marka fanaaniintii tiyaatarka ku soo beegantay baan ka mid ahaa nasiibka heshay ha markaynu tiyaatar yeelanay international iyana dunyadan ku xidhanay waa gartay marka anigu kuwa nasiibka helay baan ka mid ahaa marka safaradaas iyo tiyaatarka maxaa isku xiray waxay isku xidhayeen festivaalada laga casimeeyo fanaaniinta kuwa Afrika kuwa Carabta kuwa maaragtay Asianka dawlado badan baa munaasabadaha dawladaha dhalashadooda ayaa lanaga casumi jiray isla markaa madaxdeennana laga casumi jiray sababahaasaan ku bixi jiray sida badan waa gartay marka xilligaas waxaa muuqatay Hibe inaad ahayd qof aad u daayar marka muuqaaladaada xilligaas la duubo marka la fiiriyo gabar yar oo markaas waa kuwa noocan idahano foodleyda caashay weliba aan ku sii kordhiyay kuwa la duubay waa 83 ee kuwaan ka sii yaraa ee markii aan bilaabay 76 aan kugu daro faaladayda 14 jir baan ku bilaabay laakiin markii imtixaanka layga qaadayay maadaama aan jismi weyn lahaa dherer iyo laxaad waxaan idhi 17 jir baan ahay ilaa waxaad qalqaalsanaysa inaan lagu diiday ilaa maanta laakiin dokumentigayga tii ilaa baasaboorkii baan isku dhiibay tii baa ku qoran dhowrka sano igu saayidkahay Hibo waxaad moodaa xilligaas in dadku ay daada inay badsadaan ay raadin jireen aad u rabi jireen laakiin muddooyinkan dambena waxaa muuqata in dadka daada in laga jaro inay rabaan aad iyo aad waqtiga isbedelo hadda waxaad arkaysaa qof weyn hebel yare la odhanaya ama heblaayo yar laakiin marka anagoo 14 jir ku soo galay iyo 20 jir iyo 18 jir qofna heblaayo yare lama odhan jirin waa gartay qofka magaciisa loogu yeeri jiray yare ma jirinba ay waa la wada weynaa waa la wada weynaa malaha yaraanta lagu qaangaari jiray xilligaas yaraanta lagu qaangaari jiray oo caqli lagu yeelan jiray waa tahay marka la soo dhawow heeso badan baad qaaday oo dalka iyo dadkaba ka hadlaaya heesahaaga wadaniga way badan yihiin kuwa jacaylkaad qaada way badan yihiin oo dhammaantood ka tarjumayeen xaaladaha bulshada ay ku sugan yihiin tusaale kale markaan soo qaato waxaan jeclaa bal inaad noogu bilowdo inkastoo waraysiyo badanna hore lagula yeeshay idaacaddan VOA ay kula yeelatay laakiin kuwaan sida gaarka u raba inaan waraysigan ku xusno waxaa ka mid ah heesta kaftan oo kale
oo dad badan ay siyaabo kala duwan u fasiraan bal waxaan rabaa heestaasi qisooyinka ama qisada ay ku fadhido dhabta ilaan adaa qaado ogaa halkii lagu sameynaya baad ogay waa run bal inaad dadka u sharaxdo qisadaasi waxay ahayd horena waanu sheegay waan uga sheekeeyey laakiin fiyahoda weli ugamaan sheekayn gabadh waxay ahayd ninkeedu ku maqan yahay carabta ilaa 3 caruur ay ka dhalaysana uu carabta ku maqnaa marka abwaan weyn allah u naxariisto yuusuf aadan allaale la odhan jiray ayaa gabadha ay xigto u ahayd adoo raalliya 3 caruura ka dhalaysa maxaad ula jeedaa imaanaya uu noqonaya waa gartay marka yuusuf xawaalada keliya markaa jirtaa waxay ahayd lacag la isugu soo diro jirda xuseen waa gartay way dhifooradii haye marka jirda xuseen baa lacagta loogu soo diri jiray yuusuf baa u qaadi jiray oo dee adarays laho nin caanoo la garanaya oo la aaminayo haye yuusufna gabadha qaraabo dhow bay ahaayeen maalintii dambe wuxuu yuusuf gabadhii waxaan lacagtii u geeyaba waxay tihi aniga lacag dambe iima keeni kartid maxaa dhacay buu yuusuf ku yidhi waxay tidhi ninkani haddii anigu nin baan u baahnay lacag maan guursanne ama hay kaxeeyo oo ciqaamad ha ii soo sameeyo te ama ha iska kay fasaxo caddaan waa gartay yuusuf wuu yaaba wuu maslaxay oo way diiday ninkiiba xaaladii sidii loogu sheegay ninkuna gabadhiisa aad buu u jeclaa wuxuu yidhi waan dadaalayaa yuusuf isla markiiba heestan uu sameeyey yuusufka marka waa mu'alif waa yuusuf aadan meel yuusuf aadan allaale haye waa ismaan askari walaalkii lacagtan isagaa soo qaadi jiray isagaa u soo qaadi jiray gabadhana qaraabay ahaayeen marka waa markhaatigii koobaad waa gartay isagaa fanaaniinta dareenkaa kicisa dareenkiibaa kiciyey halkay ka hadlaysa gabadhu waxa loo baahan yahay qoto dheer inay tahay markiiba tixdana kusoo dhacday haye kaftan baa jacayl qaba kulankaa u xididaa murtibaasa kicisay intaad keen adduunyiyo kordhi maalis leedahay kaxbaanahayo ma ogtahay waa gartay marka isla markii haddana wuxuu maskaxdiisa ku soo dhacday in anigu qaado waa gartay intuuna anigaba ii sheegin buu igu saleeyey aniga haye cabdikariim faarax qaari oo laxanka sameeyena isla markii buu doontay lacagtii weli wuu hayaa gabadhii way diiday ma qaadanayay tidhi haye way ii yimaadeen marka waxaa la yidhi heestan adaa lagu gartay inaad qaado heesta sida baan ku qaadnay gabadhii heesta markaa heesaa cajalad baa la isugu diri jiray halka imika maaragtay waxyaalahan kale la isticmaalay inta la duubo baqshad lagu ridaa qof sii baxaya loo dhiibi jiray may boostaaba la dhigi jiray boosteena si fiican u shaqaynaysa tuulo kasta haddii laga diro boosteena way tegi jirtay markaas gabadhii heestii markaan qaadayba way dirtay ninkiiba u dirtay kaftan waa jacayl qaba kulanka u xilidaa murtibaasa kicise intaad keen adduunyo kordhi maalisyaday kaxbanahaye moogtahay kaxbanahaye moogtahay ukaynantay tacabire kolkan laba kufkeeno kaftamayegaba kaligay saritan kududaye moogtay ma ogtahay kududaye moogtahay qofna kadabkii loo qoray kala segmaye kurdad waa la qaataa kibis waa la quutaaye kibirku sasad maahe qofna kadabkii loo qoray kala segmaye kurdad waa la qaataa kibis waa la quutaaye kibirku sasad maahe
naftan naftan kama adkaan karoye ninka ku dhacday wuu seexan waay shaqadii fasax buu ka waayay timuhu iska xiray wuu wareeray wuu soo dhoofay haye wuu yimi gabadhii ciqaamad ilaahay baa u fududeeyey buu keenay wuuna ka haystay waa gartay waa halka naajaxaasa markay heestaas ay leedahay intaad keen adduuniyo kordhi maalis leedahay kaxbaan haye moogtahay ku kaynaantii tacabire markaan laba kufkeenno kaftamayo eegaba kayday sariirtaan ku ududaayo moogtahay waa dareen badan waaw waa gartay marka fanaanka abwaanka heesta sameeyey yuusuf aadan markii erayada uu go'aansaday in uu sameeyo waxaad ii sheegtay inuu markiiba asoon ka labalabayn siduu igu yidhi markiiba adaan kuu gartay buu yidhi muxuu la jeeday wuxuu la jeeday wuxuuaan isi fasiray ama waraysiyaal lagu waraystay buu ku fasiray waxay ku fiican tahay buu yidhi hibo inay xaas wanaagsan noqoto oo maaragtay masajkaa gudbiso gabadha ka gudbiso waaw waa sida muuqata hiba inta badan heesahaaga marka la dhagaysto aniga qudhayda anaan weligay ku arag oo si toosa sida haddaan kuu fadhiyo gacantayda kuu gaarayso aan kuu arag baan heesahaaga aada u jeclaa waxyaabaha ugu horeeya number 1 ka noqday kaalinta koobaad ka galay in heesahaaga jeclaadan waxay ahayd fariimaha heesahaaga ku jira oo mid la tuuraba heesahaaga male markaad heestaada lasoo qaadaba waxaa muuqanaysa aada moodaa in adiga kaa hadlayso marka waa heesaha abwaanintaas wadana wanaagsanaa ee soomaaliyeed ay ku dooreen ama ay kula caashaqeen kolleyba iyagaa ogo qofka iyo heesta iyo eryada u qalmo iyo codka u qalmo way garanayeen waxaad markaa ka warantaa heestaas marka la qaaday kadib maxaa dhacay magaaladii oo dhan bay gashaa la yidhi heestaasi oo xaaladii markaa jirtay oo dhan bay bedeshay hayo markaa waa laysku diri jirayoo maaragtay waa laiska wada daba raacay heestaasi mudday waddanka gelgelaysa gabadhii inay hadasa rabtaba taa unbay diri jirtay dariiq furmay bay noqotay ila naag bay u najaxday waana runtii in badanna way ku najaxeen marka hiba waxaad ka warantaa xaaladaas waxay ahayd sanadku waa harta sanadku 84 waa gartay maanta waxaan maraynaa 2016 xilligaa malaha waxaad moodaa in dhoofka sida hadda uu u jiro ama soomaalida u kala maqan tahayna xilligaa loo kala maqnayn maya 2 marxaladood baa kala jiray markaa marxaladii carabta la tegi jireed oo nafteedu way tiro badnayd aad bay u badnayd haddana marxaladan yurub iyo ameerikaa soo baxday markii dalkeenu burburay waa gartay laakiin de marxaladaa lamana tahriibi jirin lamana balamooli jirin fiisaa la qaadan jiray oo la shaqo tegi jiray haye hadda laakiin markaad fiiriso heestaadii kaftan waxaa laga yaabaa haddii 80aadkii dumarkii soomaalida ay heestaa adeegsan jireen in weli ay dhici karto xilligan hadda la joogo 2016 la marayo in dumar fara badan oo qaarkood iyaga oo waddankii jooga oo ama nin dibadda jooga inta lagu daro oo loo guuriyo laga yaabo inay sanooyin qaadato intii qofka laga soo dhoofinayay oo ilaa iyo hadda aad moodina heestaadii taagan tahay oo marka qofka uu hadda uu soo hadal qaado heesta kaftan ilaa haddadan ay adeegsadaan soo noqo iyo kaftanba soo noqo adoo nabad way isku yidhaahdaan labadii maaragtay email isku diraysa ayaa kale tirtaaba soo noqo adoo nabad joogtana ku seexo ku soo toos anna waan ku sugayaa soo noqo adoo nabada soo noqo adoo nabada soo noqo adoo nabada soo noqo adoo nabada
heestaasi soo noqo adoo nabada iyo codkaasi macaan ee dhegihiina ku soo dhacaya hibe maxamed ayaan ku soo xirayaa barnaamijka cawayska Washington ee caawa toddobaadka dambe haddii aan la idmo waxa ay hibo sheekada nooga bilaabi doontaa heestana soo noqo adoo nabada oo weliba aniga xaggayga ah hees ay hibo leedahay oo ay qaado tii u horreysay ee dhegahayga ku soo dhacda intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo Moye, and no one